أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا الله سبحانه وتعالى ما دام صفاتك أي تلمامها وليهي وإن أبوري وإن ليهي وإن معموله ونعمي وناك استوي نسيي وحق إنه يقول لي يا رب سبحانه وتعالى إنه ينقنا الدوام الدبا وإنه حقيقينه ujeedada ilaahay inoo abuuray saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow qofka muuminka ahi hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu soconayo hadduu arrin adduunye ku jiro hadduu masaajidka fadhiyo hadduu goobtiisa ganacsi dhex fadhiyo waa mid aan marnaba ilaahay subxaana wa tacaala aan ilaabin qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ikhlaasan magac ku dooni maayo maamuusna kuma rabo manfaca adduunyana hadalkeeda baddaa ilaahay buu wax kaga doonayaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr afartaasi arrimood waktigu waa qaali oo anigaa ku dhaartaye ha ku dhammaada weeyaan macnaheedu iimaan camal saalixa sabir aad ku sabirto wanaagga xumaanta aad ka sabirto qadarada ilaahay u xanuujiyana aad u sabirto iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala adiga uu kugu galladaystay inaad dadka kalena u gudbiso bakhayl aanad ku noqon abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo beec iyo shiraa inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan wuxuu ku yihi ayuha annaas antum haa huna wa miiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid dadoo halkanaad fadhidaan dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegay masaajidka in lagu qaybsanayo waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo qur-aan lagu baranayo masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan waxay ku soo noqdeen abu hurayra radia allahu canhu waxay dhahan yaa abaa hurayra inamaa taquul abu hurayra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo wakula insaanin alzamnaa طaa'irahu fii cunuqihi ilaahay baa wuxuu yidhi qof walba waxaanu qoorta u sudhnay camalkiisa waxaanan u soo saari doonaa maalinta qiyaamana soo hordhigi doonaa isagoo ah qoraal uu akhriyo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waxaa la odhan doonaa akhri qoraalladii lagaa sameeyey naftaadaa maanta kuugu filan عدك حسابي أديكو قرنقص أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفك بني آدم كاي الدنيا كنول وحليه هدي تشرالة وحيابة حرة وحيابة قار كود إنو السمايين كلفو كريحة وحيابة قار كودنا كعلية وكور استاجة قفك مؤمن كآه حريه سؤوين wanaaga ku riixee ku kalifa samayntiisa xumaantana ka celiye ka hor istaaga naftiisa inuu ka xakameeyana sabab ugu noqdaa waa muraaqabatullaahi subxaanahu wa tacaala muraaqabatullaahi tabaaraka wa tacaala oo macnaheedu uu yahay inuu yahay
mar walba xaal kaste wakti kaste meel kastoo uu joogo dadka hadduu u muuqdo iyo hadduu ka qarsoon yahayba inuu yahay mid xusuusan allah subxaanaه wa tacaala abuure ee ka sareeya, inuu dhawaaqiisa maqlayo, dhaqdhaqaaqiisana arkayo, xaalkiisana og yahay hadduu qariyo iyo hadduu muujiyaba. ilaahay subxaanaه wa tacaala arrinta noocaasa inuu odhan karno waa akbaru waacidin wa acdamu zaajir, waa waaniyaha ugu weyn ee aniga iyo adiguba aynu haysanno, waa arrinta ugu xooga badan ee xumaanta iyo waxaanu ilaahay noo ogolay inaga celin kartaa. in fara badan buu ilaahayna xusuusiyey iyadoo aynu nahay dad muslimiina oo rumaysan allah subxaanaه wa tacaala inuu yahay mid maqlaya dhawaaq kaste, mid dhow iyo mid dheer, mid hoos loo dhigayo, mid kor loo qaado, mid og wax allaaliya waxa adduunyada dusheeda ka socda. haddana ilaahay in fara badan ayuuna xusuusiyey. ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi yaa ayuha الnaasu اtaquu rabakm اladii khalaqakum min nafsi waaxida وkhلق minha زawjaha وبث minhma رijاalا kaثيirا ونisاءa واتقوا اllaha اladي تsاءلuuna bه والأرxاam. wa amar ilaahay dadkao dhan uu ku amray ilahay inay ka baqdaan oo ay ku dhaqmaan sharcigiisa iyo diintiisa iyo axkaamtiisa oo ay u noolaadaan sida ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ka doonayay raallida uu ku yahay ee dantooda iyo manfacadooduna ay ku jirto. intaa dabadeed ilaahay wuxuu yihi ina allaha kaana calaykum raqiiba. maxaa sabab u noqon kara sida ilaahay idinka doonayo inaad u noolaataan oo hadallada idinka soo baxaya iyo ficilkiina iyo dhaqdhaqaaqiina waxaad samaynaysaan iyo waxaad daynaysaan u noqdo mid ilaahay raalli geliya? waa inaad ogaataan oo aada xusuusan tihiin ilaahay inuu yahay mid xoggaalidiina xaalkiina la socdo, arrinkiinuna marna baanu ka qarsoonayn. ina allaha kaana calaykum raqiiba wa kaana allahu calaa kuli shayin raqiiba. ilaahay subxaanaه wa tacaala shay walba waa mid arka, waa mid maqlaya, waa mid og, waa mid xoggaalo ah, waa mid aan xaalkiisa iyo arrinkiisu aanu ka qarsoonayn. in badan buu ilaahay subxaanaه wa tacaala arrintaasi inagu waaniyey. waxaa ka mida magacyada ilaahay aan rumaysannahay magaca ashahiid oo ah in waxa maqan inaga inaga maqan iyo waxa jooga ilaahay isugu mid yihiin. waxa hoos loo dhigo, waxa kor loo qaado, waxa la qariyo, waxa la muujiyo. kaana allahu calaa kuli shayin shahiida. ilaahay waa mid shay walba shaahid ka ah oo arkaya oo maqlaya oo og oo la socda. waclamuu ana allaha yaclamu ma fii anfusikum faxdaruu. waxaad ogaataan ilaahay inuu og yahay. iska dhaaf wax idinka soo baxo dhawaaqa waxaad samaysaan oo xaraka iyo dhaqdhaqaaq ka dhasha, waxa aada qarsanaysaan ee laabihiina ku jira ama naftiinu ay ku xashaanshaaqayso ay ku showrayso ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala og yahay. yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur. wuxuu ilaahay og yahay isha wax khiyaamaynaysa iyo waxa laabuhu ay qarinayaan. qof kasta oo muumini markuu maqlo aayaadka qur'aanka ah, marka uu maqlo magacyada ilaahay alraqiib, alshahiid, alkhabiir, السميع العليم البصير, arrinta noocaasi ahi waxa ay ku kordhinaysaa inuu noqdo mid mar walba xagga ilaahay subxaanaه wa tacaala iska eegaya. oo hadduu istiraahdo hadal markiiba ay ku soo dhacayso ana allaha yasmacuhu, ilaahay inuu maqlaayo. hadduu doono inuu wax sameeyo markiiba dareemaya ana allaha yaraahu aladii yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi الsaajidiin. ilaahay subxaanaه wa tacaala waa ka ku arkaa markaad istaagto, salaada markaad isu taagto, iyo isrogrogaaga dadka tukana dhexdooda isrogayso, maraad kacdo, maraad rukuucdo, maraad sujuuddo. bal ilaahay wuxuu og yahay waxaad u tukanayso. lilaahi am ligayr illah, ma ilaahay daraaddii mise ujeedo kale? arrinta noocaasa qofka muslimkaahi marka uu dareemo waxay hagaajinaysaa dhaqankiisa oo dhan. yakunu kalaamuhu kalaama طayiba yurdi اllaha subxaanaه wa tacaala. hadalkiisu wuxuu noqonaya hadal wanaagsan oo ilaahay raalli geliya. afcaasha kasoo fulaysa waxay noqonaysaa mid qurux badan oo ilaahay uu jecel yahay oo isaga iyo khalqiga ilaahayba waxtar u leh. waxaa hagaagaya qofka xaalkiisa oo dhan. waxaa ku badanaya qalbigiisa xishoodka ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ka xishoonayo. wاlxayaaءu min aliimaan. xishoodka
oo ka ilaahay laga xishoodaa uu u weyn yahay una waajibsan yahay waa mid iimaanka ka mid ah. ilaahay buu subxaana wa tacaala ka xishoonaya inuu ka maqlo hadal xun. ilaahay buu ka xishoonayaa inuu ku arko xaalad xun iyo meel xun inuu ka waayo ilaahay meesha uga yeedhay. ibnu samaak wuxuu yihi walaalkay daawuud ayaa wuxuu igu yihi isagoo iwaaninaya waxaad iska ilaalisaa an yaraaka allahu xayثu nahaak, ilaahay inuu kugu arko meeshuu kuu diiday. meeshuu ilaahay kuu diiday wuxuu kuu diiday marka aad tagtay aad ku jirto ilaahay uu ku arkaya ogow. wa an yafqidaka xayثu amarak, inuu ilaahay kaa waayo halkii uu ku amray ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa doonay inaad timaado. ilahay wuxuu kaa doonay masaajidka inaad timaado, goobaha cilmiga, goobaha cibaadada, meesha khayrka lagu hayo. xajku ilaahay kaaga yeedhay, goobaha ilaahay yaanu kaa waayin. goobaha ilaahay uu kuu diidayna oo meelaha lagu hayo kufriga iyo shirkiga, meelaha lagu hayo beenta, xanta, dadkoo la isku diro, meelaha macaasida lagu hayo, heesaha iyo muusiga. ilaahay mar walba uu ku arkaayo halka ayaanu kugu dhex arkay. waxaynu ogsoonahay oo aniga iyo adiga iyo dhammaanteenba inagu beeran in aynu dadka iyo makhluuqaadka waxyaabaha aan wanaagsanayn inta uu damiirku nool yahay inaynu kala xishoonno, oo dadka inta uu damiirkoodu nool yahay xumaanta si hoose ugu hadlaan oo way gaagaabsadaan. haddii ay samaynayaanna way la dhuuntaan oo way qarsadaan. laakiin waxaa ka maqan xaaladda iimaankii gaadhsiin lahaa dareenka ah inaanay ilaahay dhawaaq ka qarin karin, dhaqaaq iyo ficilla inaanay ilaahay subxana wa tacaala ka asturi karin. aynu isweydiino keebaa u mudan inaynu ka xishoonno, ma khaaliqa mise makhluuqa? keebaa xaq u leh in aynu iska dhowrno oo aynu iska ilaalino xaggiisa? ma makhluuqaadka inaga oo kale ah ee waxtar iyo waxyeelo toona aan inoo hayn, mise allaha subxaana wa tacaala khaaliqa ee wanaag oo dhan iyo nicmo oo dhan inoo galay, dhibaato o dhanna inaga ilaalinaya, xaqna inoogu leh in aynu weyneyno oo aynu ka xishoonno oo aynu u hoggaansanno. dadkii inaga horeeyey ee wanaagsanaa ilaahay magacyadiisa aynu tilmaanay alraqiib, alshahiid, alsamiicu, alcaliim, alkhabiir, albasiir, markii ay quluubtooda gashay macnaha ay tilmaamayaan ee iimaan dhaba ay rumeeyeen, arrintaasi waxay u noqotay booliska koobaad ee xumaanta ka celiya, goobaha fiicanna u kaxeeya. cumar bnu khadaab radia allahu canhu isagoo safar ku jira ayaa habeen wuxuu degay magaalada maka duleedkeeda. waxaa buurka ka soo dhaadhacay nin adhi la jooga. ninkii baa wuxuu ku yihi waxaad iga iibisaa neef adhigaa ka mida. wuxuu hi adhiga anigu ma lihiye nin baa iskale, aniguna addoon aanu ahay. wuxuu doonayey cumar inuu imtixaamo ninkaasi bal iimaankiisa iyo alla iska dhowrkiisu heerka uu gaadhsiisan yahay. waxa uu ku yihi ninkii adhiga lahaa waxaad ku tidhaahdaa yeygaa qaatay. wuxuu yihi ninkii adhiga lahaa haddaan sidaa ku idhaahdo famaada aquul lirabbi, rabbigee maxaan ku idhaahdaa? cumar hadalkiisa ka turjumaya iimaankii alla kacabsiga iyo ilaahay subxaana wa tacaala xaalkiisa inuu la soco siduu u dareensay aada buu cajabgeliyey. wuxuu ku kalahay ninkii iska lahaa addoonkaa, waa uu ka iibsaday, kadibna wuu xoreeyey. waxaanu ku dhaha اctaqadka hadihi اlkalima fi اdunya wa arju an tuctiqaka fi اlaakhira. kelmadani adduunyada way ku xoreysay, addoonnimadii bay kaa saartay, waxaana rajeynayaa aakhirada naar inay kaa xoreyso. hakada yafcalu اliimaanu wاlmuraaqabaةu biahli. iimaanka iyo qofku xaalkiisa ilaahay inuu la socdo og yahay, dareensanaanta uu dareensan yahay, sidaasay ku samaynaysa, saasay xumaanta uga celinaysaa. intaanu dadka iska eegin ilaahay buu iska eegayaa subxaanahu wa tacaala. dad fara badanoo xumaanta ku dhiiran oo ku maman arrinta noocaasi ayaa ka maqan, khafladna ay kaga sugan yihiin. nin baa gabadh xumaan ka doonay goor habeena, kadibna markii xumaantii ay u diyaargarowday inta aanu samayn ayaa isagoo ilaahay ilowsan waxa uu yihi sida dad badani ay yidhaahdaan laa yaraana ila alkawaakib, xidigaha mooyaane cid kale inama aragto. xumaantii waa inuu haata helay cid aynu ka xishoonayno ama aynu iska dhowrayno inayna aragtaana ma jirto. gabadhii baa waxay tihi fa ayna mukawkibuhaa, xidiguhu haddayna arkaan allihii xidigaha abuuray mee? hadalka noocaasi iimaankii qalbigiisa ku jiray ayuu ku luxay oo ku dhaqdhaqaajiyey. waxaanu sabab ugu noqday
xumaantaasi inuu ka istaago ilaahayna subxaana wa tacaala inuu u toobad keeno oo arintaasi waxay sabab ugu noqotay alhidaaya. dad fara badan baa khafladaysan, laakiin marka la xusuusiyo ilaahay xaalkooda siduu ula socdo, arinta noocaasi iimaankoodii alla kacabsigooda kor ay u qaadaysaa, toobadkeenna sabab ay ugu noqonaysaa. aniga iyo adiguba nafteenna aynu ugu roonaano waaniyaha u qiimaha badan iyo xumaan celiyaha u xooga badan oo ah inaynu mar walba dareensanaano ilaahay subxaana wa tacaala xaalkeenna inuu la socdo oo arrinkeenu marna baanu ka qarsoonayn. xumaanta qofka samaynaya isaga oo ilaahay ka xishoonaya oo khajilaya oo baqanaya oo warwaraya, iyo qofka xumaanta samaynaya isagoo ilaahay ilowsan subxaana wa tacaala oon ka xishoonahayn, isaga oo ku faraxsan xumaantaa samaynteeda, isaga oo aan iska eegahayn xagga ilaahay subxaana wa tacaala isku mid maaha. xumaanta qofku uu sameeyo isagoo khafladaysan oo ilaahay subxaana wa tacaala aan iska eegahayn xaggiisaba oo makhluuqa un iska dhowraya, way ka weyn tahay xumaanta uu samaynayo isagoo ilaahay xusuusan oo ilaahay ka baqanaya oo murugoonaya oo khajilaya. wuxuu ihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam, dad ummadayda ka mida laya'tiyana aqwaamu min ummati yowma alqiyaama bixasanaatin ka amhaali jibaali tihaama. dad baa maalinta qiyaame waxay la iman doonaan xasanaad wanaagyo, waa salaad, waa sawm, waa qiraa'atu qur'aan, waa dikrullah, waa sadaqad ay la baxeen, waa cilmi ay barteen, waa dacwad khayr iyo wanaag dadka ay gaadhsiiyeen, waa nafci iyo waxtar ilaahay daraaddii ay dadka ugu galeen oo ugu sameeyeen. waa xasanaatun kabiiratun cadiima, waa xasanaad aada iyo aada u waaweyn. bal buuro dhan oo silsilada golis oo kale ah ayaa xagga weynida rasuulku kaga tusaaliyey. waa xasanaad qurux badan oo aada iyo aada u cadcad oo meel fog laga arkayo indhaha soo jeedinaya. fayajcaluha allaahu habaa'an manhuuraa. ilaahay baa wuxuu ka dhigayaa xasanaadkii waaweynee ee quruxda badnaa sidii boor la afuufay oo kale. mar haddii boor la afuufay laga dhigayna macnaheedu waxa weeye xasanaadkoodaasi ku intifaaci maayaan, way ku daaleen laakiin may manafacaadsan, kamana aanay faa'iidin. aynu isweydiino dhammaanteen talo maxaa sabab u ah? maxaa xasanaadkoodii gubay ee boor la afuufay ka dhigay manfacadii waxtarkii ay u lahaan lahaayeenna meesha ka saaray? kaanuu idaa khalow bimaxaarim illaahi intahakuuha. waxay ahaayeen dad waxa ilaahay uu ka xaaraantimeeyey marka ay cidlo ka helaan ay u haato helaan kuwa sameeya, iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala iska ilaabay oo xishood iyo alla kacabsi iyo xagga ilaahay inay iska eegayaan aanay xisaabtaba ugu jirin. arrintaasi waxay sabab u noqotay dembigoodii inuu weynaaday ilaa uu gaadhay heer xasanaadkoodii iyo wanaagyadii ay sameeyeen uu gubay oo meesha uu ka saaray. aynu ilaashano dhammaanteen wanaagyadeenna oo dunuub alkhalawaat, dembi adoo isqarinaya oo la dhuumanayo ilaahay iska ilaabay aada samaysay yaanu sabab u noqon wanaag aad ku daasho aad ku tacabtay in maalinta qiyaame khasaare iyo faramadhnaan aad ka taagnaato. aniga iyo adiguba haddii aynu xusuusannahay, si dhabaan aynu yaqiinsannahay, inuu ognahay ilaahay xaalkeena inuu la socdo, waxaa taa ka dhalanaysaa xusnu tacabud, cibaadaysi wanaaggii. wuxuu inoo sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam diinta islaamku inay maraatib ka kooban tahay: alislaam, aliimaan iyo alixsaan. darajat lixsaanna wuxuu inoogu fasiray an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak. inaad ilaahay caabuddo sidood arkay sidoo kale, haddii kalena inaad ilaahay caabuddo adoo og oo mar walba xusuusan oo dareensan ilahay inuu ku arkayo. qofka ilaahay taa ku caabuda cibaadadiisusay noqonaysaa markuu ilaahay hortaagan yahay siduu ilaahay arkayo oo kale u cibaadaysanaya. ama hadduu derajada hoos uga dego isagoo ogoo dareensanoo yaqiinsan ilahay inuu arkayo, laa shaka cibaadadiisu inay wanaagsanaanayso oo khushuuc iyo qalbi soo jeeda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku caabudayo. idan muraaqabadu oo ah ilaahay xaalkaaga inuu la socdo og yahay inaad dareensanaantaa waa mid xumaantana kaa celinaysa,
wanaagaagana qurxinaysa inuu kordho oo u wanaagsanaado sabab u noqonaysa. ilaahay baynu subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu sifadaa iyo dhaqankaa wanaagsan inoo yeelo, inagana dhigo kuwa barta magacyada ilaahay macnahooda, ku dhaqma oo ku cibaadaysta, mar walbana allaha subxaana watacaala abuuray xusuusan oo xaggiisa iska eegaya. taasi ayaanay nolosheenu ku hagaagaysaa, toosnaana aynu ka qaadaynaa, khaladkana inaynu ka toobad keenno oo si dhaqsa ilaahay nooga soo noqonno sabab u noqonaysa. wallahu aclam. وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره